webiga Nile wuxuu maraa 9 wadan ayuu maraa dadka Soomaaliyeed marka inay isku mashquuliyaan ama ay ka doodaan ama inay waxba ay ka qoraan wax ay dan ay noogu jirto anaga ma fiirino heshiiska Kenya iyo Soomaaliya danta ee nagu wada jirto waxay tahay labada wadan ahaan dan masaalix ay ugu jirto haddii noqoto xagga dhaqaalaha marka laga fiiriyo waay iyo daris wanaag laba wadan aan kala maarmin oo daris ah waay oo xuduud ka dhaxay xuduud weyn ka dhaxay Kenya iyo Soomaaliya laakiin xagga dhaqaalahan inaan u fiirino waay in aniga Kenya aan saameyn ku yeelan amnigeeda iyagana aysan saameyn ku yeelan amnigeeda ay haddii fiirino shabaab inay weerar ku qaadaan Ethiopia taas waxay keenaysaa halis waxay u tahay Soomaaliya u tahay sababta waxa waay sharci waxaa jiraan caalamka ay leeyihiin dadka intaysan adiga ay dhibkooda kula imaan waxa sameeysa halka ay joogan oo tagay noqonaysa hadeen halkaas waxa ka dhalanaysa waxay tahay dal dhan oo qarannimada Soomaaliyeed in lagu soo xadgudbo oo halkaas oo inay ka sameystaan wax la yiraahdo buffer zone ayaa dhici karta winu kala maqnayno waanidin basaase bulshada nabadaba winu kala maqnayno waanidin basaase bulshada nabadaba winu kala maqnayno waanidin basaase وعنو وناكسن أخياري ميل البعض عالم كجوكتان يسوي البعض إنه الله ونسان هل كان هو شافي ميديا أنا قلنا هو شافي عشي على أونستي شرف يكرامة أي إنه تايدا وديال سد وناكسن البرنامج أنا عبد الله سعطان دار قضب يعني جعلنا برنامج كنا دا وديال إن أنا كجارسينه أنا وهو رمرو وسيردي أقبضنا أبد أي على كذا واقعي مقالة الجوهر حرونتا مامل قبلات كهير شبله وسديتن يكوب وزير ترى ما إسناء بيرجع يعدي بلوها بيجي ومشارات كذا لكن دونا دhanka kale inta safarkii madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu ku tagay dalka Masar caasimadiisa Qaahira ayaan jecelnahay isaguna inaan barnaamijkana aan ku eegno dhanka kale inta weeraradii argagixisada ahayd ee ka dhacay deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaan jecelnahay sidoo kale inta barnaamijkana aan ku eegno Soomaaliya xilligan u wanaagsan tahay in dhibaato noocaas ay faraha ay la gasho iyadoo aan ognahay awoodda aan leenahay iyo waliba xaalad imika aan ku suganahay safarkii kale ee madaxweynaha ugu tagay magaalada Nairobi ee caasimadda dalkaasi Kenya isaguse muxuu ahaa maxaa lagu heshiiyay labada dawladood ee ku heshiiyeen qodobadaas ayaan jecelnahay barnaamijkeena inaanu ku qaada dhigna haddii Ilaahay yiraahdo waad ku mahadsantihiin adikana la socodkeena qaryooley soo yes shaafi waa dhawahay marka hore waxaan ku leeyahay welcome back to London maalmaha safarka dhanka ay Canada ayaa ku maqneed marka magaalada laga tabay anyway waxaan jiray North America ayaa jiray maalmahan aad jooga xaalad okay Soomaa ما شاء الله وضعنا هذا beautiful وهواي انت maalmaha aan kala maqleen xogaa yar ayaan jecelnahay inaan iska gaarsiinay madaxweynaha Soomaaliya safar ayuu kaga maqnaa kulay anayda wada xiriirin anyway wasa socona xaalada abdidaas waxin madaxweynaha Soomaaliya waa kay baxay wuxuu tagay Qaahira safiican si wanaagsan milgale ayaa loogu soo dhaweeyay Soomaalida inta badan waxay leedahay kulankaasi wuxuu ahaa mid Soomaaliya ay ku tagtay safiican waxaan jecelnahay marka hore bal hal iyo laba waxa ka dhigi karnaa xaqiiqdii ma aha wax lagu degdega ma aha waqti Soomaaliya waa dal xor ah waay oo sovereignty-da iyo asxaabta kamid tahay membership of UN waa wadan xor ah qofkii rabta meeshii rabta ay macaamil la samaysan karto waqti dadka Soomaaliyeedna waan arkay oo dad badan siyaabo badan oo safarkaas madaxweynaha qoraalo badan sameynaa iyo kuwa hore wasiiro soo noqdeen ku leeyahay jiray laakiin hal mid waa inaa ogtahay safarka madaxweynaha horta si wanaagsan ah uu soo maray laakiin waxa isaga madaxweynaha ay ka wada hadleen iyo waxaana laga soo gudbiyay asal shacab ahaan midda private gooni loo hadlaanayo madaxweynaha waxaan ka fiirinaynaa danta guud danta guud marka waxay tahay inuu tago مصر لسه ما يصنعوا علاقات وناكسن صوتوا حوالي Soomaaliya كم انتهى جامعة العربية أنا جي مصر نا حدود نجمات هيسو عتوية واحد بيبقى نسقط من مارة صح حلا مجلس واجد مركب حنا قد حين كروا هذا في Soomaaliya
مصر مرة بالسامين أي كل حاجة سواء حمر ليس سكولة بدن حجرين ويلا حمر أو كرسنايين معلمين كذي سكولة بدن أيوة كرسي حمر أي كرسي معلمين كذا أي كانوا لأن يريد الصوماليين بدن أيا كهلن بنفيت بدن إن سكولة داسين ما أنت دافع الصومالية الدولة أود إلى هذا هي حاجة لك على كافرنا أنا كان أحكي له بدكم حليهن إن مصر iyo Ethiopia waa labo wadan ee isarka karin macnaha waxa ka dhaxay wabiga Nile oo ognahay dhibaatada baaxad lahayd ee dhaxmartay labada wadan safiya Soomaaliya waxay xuduud la leedahay Ethiopia sida sheegtana Soomaaliya xor ayay u tahay inay cid yarto leeshiiso laakiin markii marxaladda noocan la eegay xirigan munaasab ma tahay in Ethiopia iska fogeyno oo aan heshiis la sameysano Masar wax la yiraahdo fogeys ma jirto waa gartay ويجان نيل هشيس يا جري I think وحنا ملاقينا قرني 1922 مالها هشيس all صحيح يا يا صحيح أو local صحيح هاي مصر إثيوبيا اللي هو رحمة يعني حلي كوميستان هشيس يا الله أرجع مصر ما هم حدا بالأوتوما حلي جو كتلين جري واحد جري من ولا جري إسماعيل باش هبل إسماعيل باش جري واحد الدولة مسوقاري إثيوبيا مسوقار حلي جاس حلقة اسمها حلي وجوي نكلي هذا حلي سلاسي حلي وجوي هذيك حلقة اسمها جوي يوحنس 2 يوحنس سمت حساس ملينيك يوحنس أي هاي أو نينو وحها إلى تريا وهاد نينو وحها ملينيك أو إثيوبيان كان أيوة إنه عم حاريها نوم علينا مركب anyway إسماعيل وحكوسو قاضي ور إثيوبيا كوسو قاضي حلقة كيس كودن وحها أرنك النيل أيوة مركب النيل كان وحواي هشيس يا القري إن هبكاس أو لوشر جري أيتين لكن أرين كان سوماليا يو دولة سوماليا يو مصر يو إثيوبيا ما هتونا إن مثل فود ويسين ما لكن وحمهمة دانتين أساس سوماليا هان أساس كرناها حاجة كوجت واي إثيوبيا درس وناجا أيام نقدر حنكرتو وحاول يالن كرنا علاقات حاجة دخلها يا كرنا يادو أيضا سوفر جلنا إن السيستم كان الدولة الماضي والسياسة ده سوفر جلنا دولة الصومالية يادو أيضا فرق جلين كرين أما إن فرق جلين سماه سيستم كون إثيوبيا والسياسة ده ما لكن وحنا قاعد نحكي درس ونا قاعد نحكي أو وحي كلا دن جود أو ريجن أي كمان أو إسكاي كاشن كلام مركا أري أو يا سودو ويسنا ما أنا ماشي لا صار الصومالية لكن دنتين المصالحين عيابا واقع ugu dambeyntii dhanka Masar kasoo wareegi doonay heshiisyada dalxiiska ay Soomaali iyo Ethiopia Soomaali iyo Masar way la gaareen heshiisyada leeyahay oo cad maana arkin mudmadu fara badan baa jiray cabsi fara badan ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed ay qabaan in leeyihiin waxa jira heshiisyo anaga aan ogeyn oo madaxweynaha la soo gaaray madaxweyne CC la soo gaaray wax oo loo soo gaaray heshiis oo Masar ولا بدأ دولة هالشيء هاي كمان هالشيء ده دولة الصومالي مثلا اللي جاري كتوه ميت دانت الصومالي وكده هدي نقطة هنا عيدا من نقطة وقران هدي نقطة هدي الصومالي لا يبقى حاجة واحدة عشان لا يهرب دولة كعان كوارك سكولات معلمين أي وطن الصومالي كان مثلا سكولة أي استيقاظ فما سكولة كمان حمر أي وطن أوكي حتى نمرك الصومالي أو ولد دخل أحيانا أما GDP جدا أما ولد هيركل الدولة لماذا يقولوا إنسوس سجى مركز دي أي ترى أوكي مصر وحنا عاونين في حاجة عيدة هاي أنا عاونين إسرائيل عيدة ما هو أو حلو بهين وحلو بهين حاجة سكولات وحبرشدي وحرة سكولات إذا قعدت كويس إني هذا سؤال فيري وحاول قاعدة أنت سكول وحكت ترى أنت سكول تجينا عن ولد حالة لوها أو سكولات لوها أو معلمين لوها مركز دي مصر أي ترى أوكي دوك سكولات عن كويس لما مدحوين هذا الجديد تودي markii kulanka dhameysteen kadib CC wuxuu sheegay in arrimaha laga hadlay Soomaaliya ay ka wada hadleen ay kamid tahay webiga Nile oo kale laakiin madaxweynaha Soomaaliya ilaa hadda ka muusan hadal waxyaabaha mugdiga keenaya nafteeda kamid tahay ma mugdi ma keenay anaga maxaan geli arrimaha Nile webiga Soomaaliya miyuu maraa maya hadda fiiris press conference labada madaxweyne Nile Masar way dhigay Soomaaliya waxaan rabnaa markii ama UN hadee noqoto kale أما هدي نقطة أرمها جامعة العرب دولة نيل ممكن كان نقطة عيانا ويلي choice اللي وافن طبعا ما ده كرا لما ده صح لما ده كرا واي ما دخلني سيسي وسيدا سوير لما ده كرا هادي يعني كيف نعرف مركب أنا مركب أنا أكون مشغول معها
siyaasi sidaas yiri no laakiin anaga waa inaan ku mashquulnaa madaxweynaheena ama dowladda Soomaaliya wuxuu yiri maxay tahay warqadan wareegaysa ilaa hadda ka soo bixayso afyeenka madaxweynaha la saxaya mar walba xagga qoraalka taa uu qaldan yahay mararka qaar oo Twitter-ka meel buu wareegay ma dib ma laha fiiri maxay tahay hal gelinta soo maxay ku socotaa dhibaatada waxay ka taagan tahay dadka Soomaalida waxay rabaan inay wax ka falceliyaan ma hawaan inay wax dhageysan mara afhayeenka waa bil aadam waay uu qaldami kara oo ma aha malaa'ig ma sax waa khaladkiisna waxaan rajeynayaa in waxyaabo badan uu ka baranayo oo ay waxa la yiraahdaa waxa ugu muhiimsan waxa waaye experience qof waxa la rabaa experience khaladka inuu wax ka barto oo inaa saxdaayo ama khaladka marka isnad ceeb ma aha weli waxaan ku jirnaa dhanka safarada madaxweynaha anagoo rabnaa soo ka koobno dadka waxa waaye inay nagu daalaan rabno meeshaan joognana maanta waxa waaye waxaa ku badan diyaaradaha helicopterka loo yaqaano maadaama goob ganacsi waxaan rabnaa inaan ku weydiiyo madaxweynaha safarka kale ku tagay magaalada Nairobi caasimada Kenya 6 sano 4 sano ee soo dhaafinay Kenya doonta la hayay waxaad moodaa hadda inay doonta la nabahay safarkaas muxuu Soomaaliya dad u jirtay heshiiska Kenya heshiiska Kenya iyo Soomaaliya dan badan ama waaga waxaa la rabaa dan badan ayaa ku jirta heshiiskaas oo ah fiiri heshiis waliba oo dhacayo waa in laga fiiriyo xagga dhaqaalaha laga fiiriyo waa muhiimadda ay dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed ay u leedahay haddaan fiirino marka heshiiska Kenya waan arkay qodob ayay dowladda Soomaaliya Kenya ay la gaartay marka todobadas qodob waxaa fiirinaa dhanka dhaqaalaha ay ka fiirinayna haddii aad fiirisid waxa ugu Kenya ay Soomaaliya keento waxaa waa jaadka annaga marka maadaama la yiri kalluunka Soomaaliya waxaa laga qaadayaa Soomaaliya si xor ah waxaa loo geenayaa waxay dan u tahay dadka Soomaalida iyo dan u tahay sababta waxa waaye Soomaaliya inta malaayga cuntay inta malaayga cunay waxay tira badan inta malaayga cunay ayaa tira badan so haddii aan heli karno suuqaas 50 milyan 60 milyan oo Kenyaati in aan dhaxgali karno oo malaayga Soomaaliya laga soo qaado aan xagga geyn karno waxa ogaataa fiiri malaayga Soomaaliya laga soo qaado lama keen karo Europe lama keen karo ama wadanka UK ma keen karo waa sida la sheegay maya siday tahay lama keen karo laakiin malaayga Kenya haddii laga soo qaado Kenya laga soo qaado waxaa la keeni karaa UK toos loo keeni karaa marka dad badan oo ganacsato Soomaali marka waxay awoodi karaan malaaygood inay Soomaaliya ka qaadaan markay Kenya keedaan ilaa London ay keenaan ayay awoodi karaan marka one advantage taas waa laakiin advantage kale waxay tahay waxaan helaynaa suuq baaxad weyn oo dad tira badan oo haddana malaay aad u cunaan Kenyaatiga aad u cunaan waa fahamsan haddii marka laga soo tago dhulka koostiga dhaaf xataa waxay Kenya noo sheegi doonaa haddii Kenya malaay laga cuno waa fahamsan qabiil dhanaa jiraan oo malaay wax kale aad waa fahamsan qabiil la yiraahdo luuga la yiraahdo marka waxa ogaataa anaga Soomaali ahaan markaan ka soo tago midda kalluunka aan ka soo tago dadka oo dhiso constructionada guryaha dhiso dhan waxay u badan yihiin Kenyaatiga u badan yihiin xamar Kenyaati u badan yihiin dadka hospitality ka shaqeeya hoteelada oo manager garay systemka ran garay hoteelada Kenyaati u badan yihiin because anaga Soomaali ma lahano iskuul oo fiiri wali ayaga shaqaraadi Soomaaliya anaga dantan wajah maya shaqaraadi Soomaaliya fiiri Soomaali ma qabno school of hospitality ma oo lagu barto waxyaabahan hoteelada iyo sida custom service loo ran garay anaga ma qabno laakiin Kenya waxay lahaayeen school of hospitality hospitality waxaan ula jeedaa waxay tahay أي thing of tourism أما hotel وحاس قصيرا أيلين سكول أول كل الله برتا أيلين ده كاسي ده كسومالي ما أنت hotel ده وين أو حمر وحكش غيكيات ما كان قصة واحد إيش تعلم أول حد أصدق كتير لو ده أيا فايد سومال فايد حوجة أنا قاعد العتنا ده دشنا عدا ما العتنا ولا ضلنا يعني بلا شروطنا لو قادنا العتنا ما فيري العتنا أنا قبل فايدة علينا فيري هذا فيري سمرك معلمين تسكولو الصومالي بيجي هذا إيش ده majority كياتي iskuulada dhan Soomaaliya waxa macaan ka Kenyaati waa okay danta marka nagu jirto ama Kenyaati ay ka faa'iideyna waxay yihiin macaan iskuulada dhan ama jaamacadaha dhan Kenyaati macalimiinta waa fan Soomaaliya waa maraan business waa wadan waxaan nahay business ka soo socdaan anaga because waxa waaye maanta had fiiri laakiin as dawlad ahaan hadda nagu jirto maya waxa la rabaa hadii hadda fiiri maanta Ethiopia daris maanay waxaan tagay Hargeysa tagay waxaan ku arkay macalimiin Kenyaati ku arkay waa inuu macalimiin Ethiopia loo keenay وافن سما درس أنا سما why can't you look because English speaking وطن أيه ميقدر أو system حاجة أو دكسن أيه ليه مركب
تاسع مركو حي كانت وحن كفائدنا وحبرشة أو معلمين تودا فائدة أيام كوخبنا لكن ما أنت هدي الهلي واي معلمينtan iyo iskuuladan waa business dadka ka dhaxeeyo qof aad dalba kartaa oo ku imaan karaa mushaara seenaysa asaa faa'iido kugu qabo laakiin Soomaali maxay faa'iido qabtaa Soomaali waxay faa'iido qabtaa waxa waay dhalinyaro badan oo wax la baray oo system saxan oo macallimiin diyaarsan ayay leeyihiin hadda fiiri kay waxay leedahay school of macallimiin leedahay only bas waxa lagu baraa macallimiinta lagu baraa college dhan waxay leeyihiin macallimiin ay leeyihiin anaga marka maanta Soomaali ina standardkas aan gaarno waqtiga qaadanaysa wadan waxaan anahay oo civil war ama dagaal soo hadda ka soo baxnaa waa gartay mid hadda marka benefit nagu jira waxay tahay aqoonta dadkan ay wadaan ina anaga aan ka reebano ayaa dan nagu jirta masaalix nagu jirta waa ma santahay dowladnimada marka arrinka dowladnimada oo tagana marka fiiri maanta haddii Kenyaatiga ay dhahdo okay wixii macallimiin wixii construction Soomaaliya dhisaya dhan oo wadan Soomaaliya wax ka soo wada baxaa booskooda ayaanu buuxinay oo gudbina kaas waxaan aadna dhanka iyo maalin dhawaato deegaanka Soomaalida Ethiopia hoostaga kooxaha argagixisada Soomaaliya jooga al-shabaab ayaa sheegtay inay weerareen arrintaasi Soomaaliya xilligaani qaabni ay wax ka taa horta daway horta loo wajahay markaan ka soo tago shabaab inay meel weerartay arrinka noocan markay dhacdo waxay ahayd wasiirka difaaca ama wasiirka amniga Soomaaliya ama sirdoonka Soomaaliya fakt ugu horeys inay baxaan ay Ethiopia tagaan ay ahayd ma dhicin iyagana Ethiopia sidoo kalena arano in over the phone waxaas inay kula hadleen ma naqaan horta ma dhihi karno ma dhicin laakiin waxaan fiirinaa overview ma anaga waxaan ognahay ka hadlayna hadama saxaafadina agjar deegaanada ay weerareen waa dhulka Soomaalida waa Ethiopia ma iska Ethiopia of course Ethiopia tahay waa la gelinka Soomaalida aan leenahay waxa jooga dad Soomaaliyeed joogan madax Soomaaliyeed ila eegan xiriir la soo sameeyaan toos dawladda Soomaaliya ayna iska wareystaan qaabka ay u wajihi karaan caqabatan oo timi because saameyn waxay ku leedahay labada dhinac saameyn ku leedahay hal dhinac kaliya ma iyaga marka waxa la rabaa hadda sidaan maqlayno oo leeyahay agjar waxaan sameeynaa buffer zone sameeynaa dawladda Soomaaliya ma kala tashtay inuu buffer zone uu sameeyo taasna waxay noqonaysaa su'aal kale waxa ka dhalanayso oo xadgudub ku ah qarannimada Soomaaliyeed ayay noqonaysaa oo waxa lagu xadgudbayaa dalkan inuu xor yahay iyo qarannimadiisa iyo dadkiisa ayaa lagu xadgudbayaa marka inuu iska yiraahdo buffer zone sameeynaa oo dhulka Soomaaliya 60 kilometer u galayna xaggaas baa xirinay waxa keenaysa tabarxumada Soomaaliya leedahay xilligan ما تورحمة Soomaaliya tawarxumo ma laha laakiin systemkani in la organize karay ciidamo way buuxaan ciidamo waxa shalayba iskuulkan oo Turkiga ciidamo ayaa ka soo baxeen ciidamo kale military jira ciidamo kale waxay jiraan bahalkay jiraan ciidamo badan magaalada joogaan anaga Soomaaliya ilaa iyo xilligii dawladda hore ee baxda maalin dawlad kasta imaado ciidamo milyanees intaas oo koonta la tababaraa haddana wax taya ma laha fiiri waxtay ma ma tay way yeelan karaan madaxweynaha hadda jooga xilligii uu siga uu joogay ciidamadii la tababaray waa milyanees yahay xagga ku dambeeya fiiri waxa keena waxa maqana hogaamiyaasha dhawaatada naga soo xigtay hadii hogaamiyaasha aysan kalsooni isku qabin ciidamada kalsooni ma qabin waa gaar fiiri wadan waxa dhisa hogaanka sare haduu kalsooni uu qabo uu visionkiisi uu arki karo before intuusan dagaal uusan qaadan intuusan madax qaabka wadanku dhisaayo visionkiis waa inuu diyaarsan tahay waa inuu arki karo waa this how aan rabo visionkan inaan u gaarsiiyo muddadana rabana inaan gaarsiiyo ee u diyaarsan tahay laakiin haddii hogaamiyaasheeni ay yihiin kuwaan kalsooni nafsadooda ku qabin then waxay dhisi karaan mar walba noqon karaan gudbina kaas Soomaaliya shantii sano ee la soo dhaafay ma jirin maamul goboleed intuu baxo taga oo shir la qaata xukuumadda Ethiopia hadda maalin dhaweeyay waxa jirtay madaxweyne Dani inuu baxay Ethiopia oo si heer sare loogu soo dhaweeyay oo kulan la qaatay madaxweynaha Ethiopia kulan la qaatay wasaaraha Ethiopia kulan la qaatay marka in xilligaani mar labaad sida bari ahaa jirtay maamul goboleed ay aadaan Ethiopia ee la soo hubeeyo ama siyaasad ama wax dhaxmarto anagu ma sheegi karno laakiin calaaqaad noocaas oo dhaxmaro saameyn inta laga iyo ku yeelan kartaa dawladda dhexe Soomaaliya fiiri horta dawladda dhinaca dhigno anigu maana baarlamaanka saashara dejin baarlamaanku wuxuu leeyahay aqal sare ayuu leeyahay
aqalka sare waxay ay ilaaliyaan danaha maamul goboleedka ayay xildhibaanay ay bahalka leeyihiin gudoomiye baarlamaan ayay dhibaatada Soomaaliya waxay ka hagaajin waa baarlamaanka waaga eraygan soo qaadis I think waxaan u maleynaa 1729 dalka Mareykanka isteediyada waxay u soo carari jireen Yurub waxay u soo carari jireen 1729 Yurub ama waddanka UK ama Yurub waxay ka horeysay Mareykanka ay ka horeysay Mareykan dib loo ka dhisay marka waxay ahaayeen state waliba wuxuu soo carari jiray Yurub oo aadaya iskiisa Yurub oo madaxa Yurub inuu shir la qabsaday state hebel oo soo baxay Yurub oo imaana 1729 sharciga la keenay oo ah ninka European ninka oo maamul goboleedka ama state hebel joogo haddii baxo uu waddan Yurub tago ama madax Yurub oo la shiro wuxuu sameeyay khiyaano qaran ayuu sameeyay ay fantamalena now baarlamaanka Soomaaliya oo dhaqankan uu soo jiray 329 xildhibaan gudoomiyaashooda inay fadhiistaan ay yiraahdaan yes waxaan soo saarayna qodob dastuuri ah soo saaray oo ah shakhsiga maamul goboleedka isagoo inuu iska baxo waddan kale uu tago uu madax kale la soo shiro iyadoo dowladda dhexe ee federaalka aysan ogolaansho uusan ka haysan wuxuu sameynaya khiyaano qaran ayuu sameynaya laakiin dhibaatada marka waxaa waaye baarlamaankeena waay sababtoo ah baarlamaanka haddaa fiirisid ma qaataan sharciyada ama waxyaabaha hor yaalo oo go'aanka leh ma qaataan tusaale yar fiiri dhibka dhan waa institutionka la yidhahdo baarlamaanka ayaa wuxuu yahay mid corrupt haddii kuwa hadda jooga ay dhaqan kale u imaadana wuxuu raacaa habkii kuwii ka horreeyay ayuu dhaqanka oo kuwii ka horreeyay dhaqankooda ayuu qaadanaya tusaale yar haddii xildhibaan uusan xaadirin baarlamaanka uusan xaadirin aana shaqada laga ceerin taas maxay ku tusay go'aanada kala adag marka ma qaadan karo marka baarlamaankaas marka waxaa leedahay in maamul goboleedyada ay baxaan ee wadamo kala tagaan ay shirlo qaataan waxa sabab u ah baarlamaanka shaqadooda federaalka oo shaqooyinkooda ama aqoonin ama ka gaabiyaan waa garta intaasay noqonaysaa fiir taariikhda wadamada waxaa lagu dhisaa taariikha lagu dhisaa wadamada dhan taariikha lagu dhisaa ka gudbinaa kaas mifan darta hal mar ku dhimaynaya taariikha lagu dhisaa annaga hogaamiyaasheen haddiisan caalamka kale taariikhyadooda sida ku dhisman aysan hayin marka waxaa adkaanaysa marka weyg aan rabna inaan u dhismano ayaa ka gaabinayna wana ma ogaan karno nooca dowladnimada aan rabna way adkaanaysaa diyaaraddan way kacday dhanka ay Johor aysa ya xildhibaanadii ugu badnaa abid maamul goboleed Soomaaliyeed u dhawaaqo waxaan siray Isnaab Yaajo wiishii oo sokorta ma la dhisay dowladda ma maalgelisayo mushaaradkooda wax bay ka dhowrbaasnaa waqti 80 iyo intaas oo wasiir ku-xigeenadii wixii ee baarlamaanka konton iyo kow ayagoo ah ayaa xamar dhax lugeynayay ay xaaladooda loo saar iska heeb 81 wasiir xagee mushaar loo geli doona ino 81 meeshii mushaar lagu helay horta mushaar waa loo heli karaa waa haddii qorshe jiro laakiin haddii warshada balcad oo la dhaqaajiyo ma kama sugeeno isna biyaaja hadii warshada sokorta oo isna biyaaja joorka dil dhaqaajiyo beerihi hiiraan iyo hirshabeelle geliyo mushaar oo sabaxaya sabah hirshabeelle laakiin lacagtu hadda dadkan badna ma qabaan hirshabeelle GDP Soomaaliya wuxuu ku fadhiyaa 135 uu ku fadhiyaa haye GDP Soomaaliya 135 ku imaanaya hirshabeelle ku imaanaya waa gartay hadda fiirisid warshadaha ugu tira badan Soomaaliya waxay ku lahaayeen waa balcad joohar dhulkan waa hirshabeelle waa gartay way faantaa hadda oo after 2 sano ka bacdi ayaa waxa la magacaabay wasiiraha la magacaabay haye way faantaa haye wana waxa la dhahay 82 wasiir ayaa la magacaabay haye shakhsiyaadka is not a problem ma problem waxay tahay mutaqana listen hogaanka ama maanta hadii meel lagu dhiibo ada waxa laga soo inaa wasiir magacaabay adiga su'aasha waxay tahay adiga oo madax meesha laga dhigay maxaa qorshe ku diyaarsan wadan waliba ama system waliba ama deegaan walba la dhisayo waxa lagu dhisaa qorshe oo ninka hogaanka uu wato ayaa lagu dhisaa now marka hirshabelle hadaa fiirin marka dadka motorka gaariga ama saaran muhiim ma shakhsiga uu ahaan karaa xataa qof aan weli iskuul tagin uu madax u noqon karaa صح haddana waxaan ka fiirinaynaa ragga uu soo aruursaday advisorada u yihiin dad noocay ayay yihiin
hoggaanka markaa fiirisid waxaa fiirisaa surroundingka uu ku dhex jiro kuwa wax u sheegayaan kabasigooda iyo aragtidooda ayuu waxaa ka turjumaanaysaa hoggaamiyaha ayaa ka turjumaanaysa nooca hoggaanka uu noqonayo ka turjumaanaysa falsafada waxay tidhahdaa maanta shaafi hadduu yidhahdo shaafi waxaa noqonaya madaxa noqonaya waxay yidhahdaan bax guriga shaafi tag shaafi waxaa fiirisaa maktabadiisa fiiri librarigiisa fiiri nooca buwaagta uu shaafi u akhrisado ayaa waxaa ku ogaanaysaa nooca hoggaamiyad uu noqonayo ayaa halkaas ka ogaanaysaa taas dee hal dadka filosofiga ay yidhahdaan waa now marka raggan waa ogna yaa fiiri inta ay runta noo jirto ayuu xaalka Soomaaliya noo jiraa waa garta marka dabageed iyo ninka la yiraahdo Goodlawe 81 xildhibaan inay intee shireen 2 sano shireen 2 sano ay maqnaayeen 2 sano maqnaayeen waqti dadka oo leeso xanaam taxana hatta runta isku sheegno horumarina anaga wada horumarina gaareen laakiin inta runta ku jirto ayuu xaalka ku jiraa aadiya afan sama now dadka marka la magacaabay dhamaantood xamar wada joogaan always xamar wada joogaan kuwa badan waxa la sheegayo xildhibaane bacaalayaasha iskaga furtaan shaatiga xildhibaanada waa la xirtay bas sax waa afan sama hadii wax la rabo in la qabto hadda ninka la yiraahdo madaxweyne cali guudaawi iyo madaxweyne dabageed it's not about ma ani ma fiiriyo masada shakhsiyaadka wasiirada la magacaabo sax waa waxaan fiiriyaa qorshaha ay rabaan Hirshabeelle ee ku dhisayaan sax waa buugooda u qoran we want to read buugaas inaan akhrina rabnaa anaga no shakhsiyaad fiiri shakhsiyaad marka magacaabad aan qorshe wadan aad tirahay waxaan magacaabay ABCD gaana magacaabay qorshahana wata sanadka ugu hore waxaan rabaa waxaan inay dhamaystirmaanayaan deen waxaan noqonaysaa qof qorshe leh meel tusaale yar ku siinaa fiiri Singapore markay dhismayso wadan faqri oo burbursan oo dad kala aragtay kala diin leh ayaa waxa uu imaaday ninka la yiraahdo Prime Minister Lee Kuan Yew ninka la yiraahdo صح waa ninka dhisuwa afan sama hatta wuxuu ku bariyay inuu ka mid noqdo Malaysia ku goobo laakiin formalki uu la imaado fiir was different qorshe u qornaa ayuu la imaaday and that's why qorshigii ayuu dadka ku ilaaliyay afan sama laakiin hadda tira wasiira magaca wasiir hadduu kooda doornimo oo xafiiska furay what kind of nidaamka oo la dhisayo oo ka filnaysa sidoo yahay ugu dambeeyay 81 wasiir Hirshabeelle ee sida ku dhisanta aan ognahay hal ma u tahay ha ama maya wax kale laga maro fiiri hal way noqon kartaa laakiin sidaan arkeeno iyo dadka arkeeno absolutely waxa la keenaan maray absolutely completely fiiri you know it's good in runta lagu yaqaano oo runta dadka ay ugu baahan صح waxa jiraan fiiri waxa la weydiiyay ninka la prime minister oo Lee Kuan Yew waxa madaxweynihii South Korea wuxuu ku yiraahday adiga 26 sano kursiga ku fadhidaa doorashaha gashaa waa lagu soo doortaa way dadka ay ku dooranayaan wuxuu yiri inta xukun ku fadhiyo wiliga hal been dadka uma sheegin inta xukun ku fadhiyo maara wiliga been uma sheegin صح waa been markuu dadka u qudbeenayo saddex wariye only waxay fiiriyaan haddii hadal uu balanqaad halkaas ka sameeyo oo uusan khudbooyinkiisa isugu jiro oo si emotional u yiraahdo wala qoraya saddexdan hadda hal qof ma haya waa write down saddex qof qalad ma gali karaa habeenkii clipkii qaadanayaan guriga dhiganayaan dib u fiirsanayaan wixii qorayaan dan ninkii prime minister waxay leeyihiin hadalkaas sidaas u tiray waa inaan samaysaa marka waa inaa fulisaa exactly afan sama dadna waxay rabaan marka isagoo waxna qabanin inaan been ku amaantid aad tiraadiyaas ma laga yaabaa in madaxweyne Goodlawe iyo ku-xigeenkiisa dabageed 2 sano ayay maqnaayeen oo dawladooda wasiiradooda aan lagu dhawaaqin ay shiraayeen ay si hoos u maqnaayeen ma laga yaabaa inay diyaariyeen warshadii isnaay inay diyaariyeen mashruuceedii tii balcad la diyaariyey ma laga yaabaa in beerihii qasabka iyo bariiska ka baxay nidaam anaga aan ogeyn ama u diyaarsan yihiin iyo garoomadii dadka dhisla kulli wada diyaarsan ma laga yaabaa to be honest oo anaga abala socon ilaa ninka 81 xildhibaan labada nin ku soo saaray hor salaamahan wax lagu dhiso waa kalsooni waa
فحاولوا نهرتوا laba sanadood oo shiraya kalsooni weyn ka boqod ay fantamanayna فحاولوا نشيرين to be honest أنا حاليا حتى 10 سنة داسين حتى برتمان تيجي كمان لك كثير intaas ayaan jeclahay daawadayaal barnaamijkeena inaan ku soo gabagabayno qoryoole aad iyo aad ay u mahadsan tahay maamulka Hirshabelle waxaan u rajaynaynaa wasiirada cusub oo humbaleyna anaga kama soo horjeedno waa wasiiro macnaha maaragtay kolley waxqabadkooda aan sugayno marka waxaan jeclahay hadduu ilaahay wax wanaagsan inaad qabataan hadduu ilaahay inaysan xamar aysan deeginaan ka qabsan ha marka daawadayaal adinkana ku mahadsantihiin sida wanaagsan aad barnaamijyadan aad ula socotaan hadduu ilaahay yiraahdo ku dhawaaqista golaha wasiirada saacada kadib ayaa la soo sheegayaa iyagoona hadduu ilaahay yiraahdo wixii abdheeda gadaal ayaa adiga socodeen socodsiin doonaa aniga iyo saaxiibka qoryoole isku duwan waxaad la sidaa iyo nabadgelyo